gabar waxaan halkan idinkugu soo gudbinayaa sheeko dhex martay gabadh iyo wiil xiriirka dhexeeyay oo kala tegay. Like a Hellcat. wiilkii ayaa sheekada bilaabay wuxuuna yidhi sidee tahay. gabadhii ayaa waxay ugu jawaabtay waan fiicanahay, adigu sidee tahay. wiilkii ayaa yidhi aniguba waan iska fiicanahay, xilli hore ayaa iskugu kaayay dambaysay. gabadhi ayaa tiri haa, waxaan jeclahay noloshu inay si fiican kuu wado. wiilkii ayaa wuxuu yidhi noloshu sidii hore ma ahan. gabadhi ayaa waxay ugu jawaabtay waxaad ula jeedaa sidii hore way ka fiican tahay noloshu. wiilkii ayaa wuxuu yidhi miyaad idhaawacaysaa ama waxaad isku dayaysaa inaad idhaawacdo. gabadhii ayaa waxay tidhi weligay kuma fikirin. wiilkii ayaa wuxuu yidhi maxaad marka sidan u samaysay, yacni maxaad iiga tagtay. gabadhi ayaa waxay tidhi waxaan dareemay la joogitaankaygu inuu kugu yahay xanuun. waxaad tidhi waxaan doonayaa farxad iyo inaan xanuun aanan dareemin. wiilkii ayaa wuxuu yidhi waxaad u malaynaysaa hadda inaan faraxsanahay. gabadhii ayaa waxay tidhi ma garanayo. wiilkii ayaa wuxuu yidhi adigu ma faraxsan tahay. gabadhii ayaa waxay tidhi waan isku dayayaa inta qaraankayga ah. wiilkii ayaa wuxuu yidhi qof aad xiriir la leedahay ma jiraa. gabadhii ayaa ku jawaabtay maxay dhib ay kugu haysaa arrintaas. wiilkii ayaa yidhi jawaab keliya ayaan doonayaa. gabadhii ayaa tidhi taasi mid dhib kugu haysa ma aha, waxaan hubaa in aad haysato qof aad nolosha la wadaagto hadda. wiilkii ayaa wuxuu yidhi sideed u hubtaa ood saa u oran kartaa. gabadhi ayaa waxay tidhi waan kuu faraxsanahay, lacalla hadduu jiro qof aad xiriir la leedahay. ninkii ayaa ku jawaabay indhahayga fiiri, idheh oo ii sheeg inaad ku faraxsan tahay inaan qof kale xiriir la lahaado. gabadhii ayaa tidhi uma baahni inaan waxba caddeeyo. ninkii ayaa ku jawaabay haa, waa loo baahan yahay, waadna u baahan tahay inaad caddayso inaadani jeclayn. gabadhii ayaa tidhi kuma jecli. ninkii ayaa yidhi leh inaadan ii xiisin xitaa hal jeer labadii bil aan kala maqnayn. gabadhii ayaa ku jawaabtay kuma xiisin xitaa hal jeer. ilin ayaa bilaamatay inay indhaheeda ka qulqusho. wiilkii ayaa ka tirtiray ilintii indhaheeda wuxuuna ku yidhi tan ayaa wax walba caddaynaysa, isagoo uula jeeda ilinta uu ka tirtiray. gabadhii ayaa waxay tidhi maxaad ka wadaa ama maxaad uula jeedaa. wiilkii ayaa ugu jawaabay waan ogahay inaad weli i jeceshahay oodna joojinin inaad ii xiisto. gabadhii ayaa tidhi okey, maxaad hal jeer xitaa ii soo wici weyday intaan kala maqnayn. wiilkii ayaa yidhi sababtoo ah waad iga tagtay oo waad i cidlaysay. gabadhii ayaa tidhi waxaan kaaga tegay sababtoo ah waxaad tidhi la noolaanshahaagu waa xanuun. wiilkii ayaa yidhi dhacdo yar oon hal arrin kugu idhi anoo xanaaqsan miyaad iiga tegaysaa. miyaanan kuu sheegin la noolaanshahaagu siduu iiga dhigay qof wanaagsan. miyaanan kuu sheegin la noolaanshahaagu inuu iga dhigay qofka ugu farxadda badan ee adduunka. miyaanan kuu sheegin dagaalkana dhex mara inaan ku raaxaystaba oon farxad ka sii qaado. miyaanan kuu sheegin inaan rabo xiriirkeenna inaan ka dhigo mid shaqeeya wax walboona dhex maraba. miyaanan kuu sheegin inaan doonayo inaan kula noolaado weligaa. gabadhii ayaa tidhi haa, waad ii sheegtay, waxaana bilaabmay ilinka qulqulaysa indhaheeda. waxay tidhi waan ka xumahay inaan kaa tago. wiilkii ayaa yidhi anna waan ka xumahay inaan hadalladaa kuula hadlo, waana ka xumahay inaan ku joojin waayo markaad tegaysay, waana ka xumahay inaan kula soo xiriiri waaye labadaa bil, waana ka xumahay wax walbaan ku dhahay.
waa inaad u dulqaadataa inta noloshaada ka dhiman ninka dhibka badan. Wuxuuna u geliyey faraanti. Gabadhi ayaa waxay tiri, maxaad samaynaysaa? Iyadoo la yaaban faraantiga uu u geliyey, wuxuu yidhi, inaan ku guursado ayaan rabaa. Labadan bilan kala maqnayn, waxaan dareemoon ogaaday la'aantaa waxay tahay iyo noloshu say u sii qaraaraan karto. Ma rabo mar kale inaan ku waayo. Maanta waa maalintii jacaylka adduunka. Waxaan kaa codsanayaa hal wax, ma noqonaysaa jacaylkayga inta noloshayda ka dhiman? Gabadhi ayaa ku jawaabtay, haa, waan noqonayaa. So